Waddanka aan maanta ka hadlayno waa waddanka labaad ee ugu dhulka weyn Afrika. Waxa uu ka dhul weyn yahay Spain, Faransiiska, Jarmalka, Sweden iyo Norway oo la isku daray. Waxaana ka dhacay dagaal dhex maray 10 dowladood oo Afrikaan ah, dagaalkaas oo loo bixiyay dagaalkii caalamiga ahaa ee Afrikaanka dhex maray. Waddankaas ayaa hadda la dhahaa Democratic Republic of Congo ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, magacaas oo loo bixiyay 1997 isagoo ka horna magacyo kala duwan la dhihi jiray. Waddankaas ayaa ah waddan macdano aad u fara badan laga helo. Qarnigii 19aad ayaa waxaa lacagtiisa rasmiga ah ay ahayd macdanta maarta ama naxaasta, kobarna Ingiriiska lagu dhaho, oo sidii X ama X oo kale laga dhigay, oo uu qofku awood ugu lahaa inuu ku iibsado waxa uu rabo. Waddankaas ayaa intuu jiray soo maray calamo kala gedisan oo astaan u ahayd maamuladii soo hayay xukunka waddanka. Haddaba sanadihii 1881 ilaa 1914 ayaa waxaa bilowday marxaladii loo yaqaanay Scramble for Africa ama ku qamaamidii Afrika, oo ay dowladaha Yurubiyaanku u kala ordayeen inay gumaystaan wadamada Afrikaanka. Waxaa la sheegay in 1870 boqolkiiba 10 keliya ay Yurubiyaanku ka gumaysanayeen Afrika, laakiin goortii la soo gaaray 1914 boqolkiiba 90 Afrika waxa ay hoos imaanaysay gumaysigii dowladaha Yurub. Haddaba Congo ayaa waxaa gacanta ku dhigtay Belgiumka oo boqorkeedii xilliga Leopoldgii labaad uu ka dhigtay dhul uu si gaara uga taliyo. Waxa uu u bixiyay Congo Free State. Boqorkan ayaa waxa uu ka faa'iideysan jiray waddanka macdanta uu hodanka ku yahay, isagoo ciidankiisu dadka deegaanka ku shaqaysan jireen oo si arxan darro ahna u dili jireen. Ilaa la yiri sanadihii ay Congo hoos imaanaysay boqorka Belgium, waxaa dhintay dad lagu qiyaasay 12 milyan. Haddaba dowladaha Yurubiyaanka ayaa ku cadaadiyay dowladda Belgium inay waddanka Congo maamulidiisa kala wareegto boqorkeeda, oo meesha u maamulayay dhul uu isagu si gaara u leeyahay oo aan hoos imaanayn dowladda Belgium, taasoo keentay in baarlamaanka waddankaas uu sanadii 1908 ka dhigo Congo inay si toos ah u hoos timaado dowladda Belgiumka. Sanadii 1960 ayay dowladda Congo xornimada ka qaadatay Belgiumka, laakiin waddanku goortuu xornimada qaatay kadib isla markiiba waxa uu dhex quusay mashaakil iyo dhibaatooyin aad u fara badan. Gobolka Kotongo oo ku yaala koonfurta waddanka ayaa sheegtay inuu ka go'ay waddanka intiisa kale. Khilaaf ayaa soo kala dhexgalay madaxweynihii waddanka Joseph Kasavubu iyo ra'iisul wasaarihii waddankaas Patrice Lumumba, kadib markii uu Lumumba caawimaad ka dalbaday Midowgii Sofiyeetka xilli uu socday dagaalkii qaboobaa, halka madaxweynaha iyo taliyihii ciidanka Mobutu ay la soo safteen dhinaca reer galbeedka, taasoo keentay in ra'iisul wasaarihii Lumumba la xiro haddana la dilo, taasoo magaciisa ka dhigtay mid ku faafay qaaradda Afrika oo loo arkayay inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo doonayay danaha waddankiisa laakiin si khiyaano ah loo dilay. Iyadoo waqtigaasi Belgiumku aad u taageersanaa gobolka Katanga ee sheegtay in waddanka intiisa kale ka go'ay, markii dambe ayaa lagu heshiiyey in ninkii gobolkaas la go'ay oo la oran jiray Shombe in laga dhigo ra'iisul wasaaraha waddankaas. Laakiin waddanku ma xasilin ee waxaa dhashay fallaagooyin aad u fara badan. 1964 waddanka barkiis waxa ay gacanta ugu jirtay ururo fallaago ah oo kala gedisan. Sanadii 1965 taliyihii ciidanka Mobutu oo gacan ku lahaa qabashada iyo dilka ra'iisul wasaarihii u horreeyay waddanka ayaa waxa uu sameeyay afgembi uu waddanka kula wareegay, isagoo waddanka magaciisa ka bedelay Congo oo u bedelay Zaire. Mobutu ayaa waddankaas wuxuu xukumayay laga soo bilaabo 1965 ilaa 1997 ama muddo gaaraysa 32 sano, isagoo noqday keligii taliye aad u gacan adag, taasoo keentay in kacdoonadii waddanka ay yaraadaan. Maalin walba saxaafadda sawirkiisa iyo magaciisa ayaa waajib ahayd in la soo dhigo, iyadoo mas'uuliyiinta kale ee dowladda aan magacooda la sheegi jirin ee xilka ay hayaan kaliya ayaa la tilmaami jiray. Intuu xilka hayay dowladaha reer galbeedka ayaa si aad u taageeri jiray, sababtoo ah waqtigiisii waxaa socday dagaalkii qaboobaa ee adduunka ee Mareykanka iyo Sofiyeetku dowladaha kala taageersan. Mobutu ayaa isagu wuxuu la safnaa dhinaca Mareykanka markii ay dhacday in jabhad ay taageersanayd Sofiyeetka iyo Angola oo ay qabsadeen gobollada koonfureed ee waddanka. Ayaa waxaa dhacday in dowladda Morocco oo Faransiisku taageerayay u soo dirto ciidamo taageero xukuumadda, halka masaaraduna ay ku caawiyeen 50 diyaaradood oo dagaal ah. Sanadii 1996 ayaa dowladda Rwanda goosatay inay xilka ka tuurto Mobutu
maadaama uu soo taageeray mucaarad Hutu ah oo Rwanda dagaal ka sameynayay. Ciidankeeda qayb ka mid ah iyo Tutsiga dega Congo ayay waxa ay u diyaarisay inay weerar ku qaadaan oo ay afgambiyaan dowladdaas. Waxa ay jabhaddaas Rwanda madax uga dhigtay nin Congo ka soo jeeday oo magaciisu ahaa Laurent Kabila. Ciidankaas ayaa waxa hogaaminayay ninka hadda ah wasiirka gaashaandhigga ee Rwanda, James Kabarebe. Uganda ayaa iyaduna taageeraysay ciidamadan. Jabhaddan ayaa waxa ay gacanta ku dhigtay gobolka bari oo dhan. Sanadii 1997 ayaa dowladda Angola iyaduna dagaalka ku soo biirtay, taasoo soo dedejisay in caasimadda Kinshasa gacanta u gasho Laurent Kabila, isagoo Mobutu ka cararay halkaas oo uu tegay waddanka Morocco oo uu ku dhintay dhowr bilood kadib. Haddaba Kabila goortuu xukunka ka tuuray Mobutu 1997 magacii waddanka ayuu ka bedelay Zaire oo uu u bedelay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Laakiin intaan sanadba la joogin ayaa waxa khilaaf soo kala dhex galay Laurent Kabila iyo dowladihii xilka keenay ee Rwanda iyo Uganda. Si uu dadka u tuso inaysan dowladahani u talin ayaa waxa uu amray in waddanka ay ka baxaan ciidamadii ajaanibta ahaa ee isaga xukunka keentay. Markaasna xilka ka qaaday taliyihii ciidankiisa oo asalkiisu Rwanda ahaa, haddana ah wasiirka gaashaandhigga ee Rwanda. Tallaabadaas ayaa ka caraysiisay dowladda Rwanda oo iyadu sabab weyn u ahayd inuu Kabila xilka yimaado. Rwanda ayaa waxa ay goosatay inay jabhad kale intay asaasto ay xilka ka tuurto Kabila. Uganda ayaa iyaduna soo taageertay Rwanda. Jabhaddii ay Rwanda asaastay ayaa qabsatay Congo barigeeda iyadoo rabtay inay caasimadda soo gaarto. Haddaba Kabila ayaa waxa uu qayladhaan u diray dowladihii Afrikaanka kale, isagoo yiri duulaan qaawan baa laygu soo qaaday. Dagaalka ayaa markaas waxaa ku soo biiray dowladaha Afrikaanka qaybtood. Dowladaha soo taageeray Kabila waxaa ka mid ahaa Zimbabwe oo waxa ay u soo dirtay 12,000 oo askari. Namibia ayaa iyaduna soo dirtay 2,000 oo askari, halka Chad oo ay Faransiisku dabada ka riixayeen ay soo dirtay 2,000. Angola ayaa iyaduna ciidan ay dowladda Congo ku taageeraysay soo dirtay. Haddaba jabhaddii ay taageerayeen Rwanda iyo Uganda ayaa waxa ay aad ugu soo dhawaadeen oo ay soo gaareen caasimadda agteeda. Laakiin ciidamadii dowladaha Afrikaanka ah ee ka dagaalamayay dhinaca dowladda ayaa awood ugu yeeshay inay caasimadda difaacaan, gaar ahaan ciidamada Zimbabwe oo adeegsanayay diyaarado ay ku duqeynayaan jabhadihii mucaaradka ahaa. Dagaalkan ayaa dowladaha Afrikaanka ahi ee aadka u fara badan ka qayb qaateen ayaa waxa laga cabsi qabay inay si toos ah madaxa isula galaan. Laakiin dagaalka intiisa badan ayaa waxa ay isu adeegsanayeen jabhado ay kala taageeraan oo ciidamadoodu si toos ah isuma weerareen. 2001 ayaa Laurent Kabila waxaa toogtay askari ka mid ah askartii ilaalinaysay. Markaas ayaa wiilkiisii Joseph Kabila xilka loo doortay isagoo ilaa maanta xilkaas haya. Haddaba Congo waxay u egtahay inay tahay dowlad mashaakilo fara badan haystaan, dadkeedu iska soo horjeedaan, inkastoo waddankoodu aad u qani yahay. Arrintaasi ayaa waxa ay xasuusinaysaa waddan kale oo calankiisuna buluug yahay, dhulkiisuna qalin yahay, laakiin dadkiisu ay waasheen oo tan iyo 1990kii isxardinayaan oo heshiin la'yihiin.